السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga waa walaashiin Zahra Ahmed, Zahra fashion wall oo mar kale idin leh maalin wanaagsan, isku soo noqosho wanaagsan. walaalahayga qaaliga anaga aad ayaan u fiicanahay, idinkan sidoo kale khayr ayaa idin rajeynayaa. waa mar kale iyo su'aalaheeni shantii diiniga iyo shantii maadiga iyo ka faa'iideysi wacan. horena waan u sheegay qofkii ka jawaabo hadduu youtuber yahayna sida aan waxyaabaha aan ku abaalmarinayo laakiin gabdhaha ama wiilasha aan weli waqtiga buuxin waxaan siinayaa watch hour iyo time. watch hour iyo waxaan siinayaa waa isku mid, watch hour iyo time waxaan siinayaa watch hour iyo subscribe insha Allah. dadka buuxshayna hadday still subscribe rabaan waan siinaa, haddii kaleeto hadiyad qofka jooskiisa kulli lambarkayga waxaan soo saaraa shaashada, ayagaan ila soo xiriirayo. marka ma dagaalayno, waa heshiinayna kulli qof walba jooskiisa qaadanaa insha Allah. waxaana jeclaa qof walbaba inaan raali geliyo, markii qofku wuxuu ku bixiyay inuu ka jawaabo juhdi timekiisa ayuu ku lumiyay. aad ayaa u mahadsantihiin. anigana waxaan rajeynayaa inaan kasoo baxayo meeshii inaan kasoo muuqan doono sidii aan u ballan qaaday insha Allah. marka hadda waxaan bilaabanaynaa su'aalaheeni diiniga sida caadada ahayd. markasta waxaan bilaabaa shanta diiniga, after that waxaan ku xijiyaa shanta maadiga marka insha Allah diinigeena maanta waxaa ugu horeeyo su'aasha koowaad waxay tahay waxaad sheegtaa tirada suuradaha kusoo degay Maka. waxaad sheegtaa tirada suuradaha kusoo degay Maka insha Allah. jawaabta waa xaqiina. su'aasha labaad waxa waaye waxaad sheegtaa duulaankii ugu dambeeyay oo uu nabigu duulo sallallahu alayhi wasallam. duulaankii ugu dambeeyay ee uu nabigu duulo insha Allah sheeg duulaankaas magac loo yaqaanay. su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa suuradaha hal mar soo wada degtay ayagoo dhameystiran. waxaad sheegtaa suurada hal mar soo wada degtay ayadoo dhameystiran insha Allah. jawaabtu waa xaqiina. ilaan suuradaha qaar waxaa loo soo dejin jiray nus marka suurad waxaa jirta ayadoo dhameystiran la soo dejiyo oo aan la kala jarjarin. marka suuradaas ayaa idinka rabaa jawaabteeda insha Allah. afar waxa waaye waxaad sheegtaa nabigii xanuunsanaa 18 sano. taas waa easy, kulli ina aqoonsan doontiin arjina. nabigii xanuunsanaa calayhi salaatu wasalaam 18 sano, sanad yar ma ahan, ilaa u sabarna si. okay, su'aasha shanaad waxaad sheegtaa ninkii jabiyay dhooshii nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Uhud. waxaad sheegtaa ninkii jabiyay dhooshii nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Uhud. ninkaas magaciisa ayaa la idinka rabaa. ninkii jabiyay dhooshii nabiga, dhool waa taqaanaa meena afarta ilig oo horo labada geesaha la dhahaa dhool ilkaha yar. ninkii nabiga ka jabiyay sallallahu alayhi wasallam markay dagaalamayeen dagaalkii Uhud insha Allah. shantaas waa shantii diiniga ahayd. okay, maadiga haddaan u gudbo su'aasha koowaad ee maadiga waxa waaye sheeg buurta ugu dheer Soomaaliya. waa easy, waa fahmi doontiin. buurta ugu dheer Soomaaliya insha Allah sheeg. su'aasha labaad waxaad sheegtaa shay ay laftiisu ka korayso hilibka. shay ay laftiisu ka korayso hilibka. markee anaga hilibka ayaa koreeyo lafta hooseyso, laakiin shaygan laftiisa korayso hilibka hooseeyo. shaygaas ayaa laga rabaa. okay, lambar 3 sheeg xilligii ugu horeeyay ee mobile shaashada laga isticmaalo la soo saaray. xilligii ugu horeeyay ee mobile shaashada laga isticmaalo la soo saaray sanadkaas ayaa laga rabaa. su'aasha afaraad waxa waaye sheeg meesha uu ku yaalo masxafka ugu weyn dunida. maasha Allah. waxaad sheegtaa meesha uu ku yaalo masxafka ugu weyn dunida. okay, haddaan u gudbo su'aasha shanaad waxaad sheegtaa 3 magaalo oo isku macno sameynaayo markii macnahooda la sheego. micnaha 3 magaalo oo ku kala yaalo 1 Afrika, 2 Aasiya, 3 Amerika. weli meelay ku kala yaalaan waa idin sheegayaa. waxaad sheegtaa 3 magaalo oo ku kala yaala 1 Afrika, 2 Aasiya, 3 Amerika.
haddana saddexdaas magaalo markii la fasiro isku micno ayay sameynayaan ama isku macno ayay yihiin. For example aniga Zahra la dhahaa, America caasimad ku taala Zahra, haddii la fasiro Zahra la dhahaa. Aasiya caasimad ku taala Zahra la dhahaa. Afrika caasimad ku taala Zahra markii la fasiro ilaan wadamada isku luqad maahan. Wadan kastaba wuxuu leeyahay luqad, laakiin Carabi qof ku hadlaayo, English qof, Chinese, laakiin caasimadaas saddexda caasimad markii la isku keeno oo ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo America magacyadooda isku macno ayay sameynayaan, waa isku mid. insha Allah marka waxaan idinka rabaa 3 magaalo oo ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo America oo isku macno sameeyo. guushu waa xageena, su'aashu waa xageyda. insha Allah walaaleyga qaaliga ah khayr aan dhamaanin ayaa idin rajeynaa insha Allah. kuwii jannada ku kulma Allah naga dhigo. siraadka iyo su'aasha Allah noo fududeeyo. ilaahay irsaaqadaha noo waasiciyo. intii haysata Allah u barakeeyo. intaan haysan Allah siiyo. geerideena iyo gafkeenana ilaahay ma kulmiyo. khayr aan dhamaan idinkaga tagayaa insha Allah. jawaabta markaa kasoo jawaabtaan duu ilaahay karaal noqdo birito ayniin soo dhigayaa. barkii ayaanta waxaan rabaa inaan si joogto ah u wado barnaamijkeena oo aan kala joojin. marka jawaabaha insha Allah isla biri waa soo dhigaa cidii ka jawaabto iyo qof walba wuxuu ku guuleystay. khayr aan dhamaanin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mac salaama. jannada inoo balan.